runtii anigu iminka muddo aan u malaynayo 4 sannadood mise 5 sannadood ka hor iyadoo weliba halkan maanta la taagan yahay la taagnay waxaan ka sheekeeyay qisadaana dadkii victimska ama dhibanayaasha ka ahaa macnaha qofkii dhibanaha ka ahaa ehelkiisa ayaan uga idan qaatay anigoo uga jeeda tawciye iyo wacyigelin waa laga yaabaa inay dadka qaar arkeen inaan dhalinyara oo dugsiga hoose dhexe aan weligeed kaalinta koobaad ka dhaadhicin oon weligeed mobil isticmaalin oon maxaan idhaahdaaye rag iyo dee la macaamilkiina meel laba u soo marin muu filan qisadaasi hargeysay ka dhacday markuu u soo iibiyey nabad iyo caana waxaan ahaynba waa la kala qaadaaye mid kaloo aafaysan ayaa iyadu markiiba arrimo aanay haafka iyo hiyigaba ku haynin tustay oo tiri dee waxaa la soo furtaa internetkii oo halkanaa la galaa oo waa sidan oo waxaa la samaystaa account noocana oo waxaa la samaystaa fasaad buug annagu waxaan u naqaanaa fasaad buug idinku wax kala u taqaanaan soo maa waaye ayaa la samaystaa wixiiba way u wadato markiiba mid kale ay garanaysay isku xidhay inankiibaa marba risaalad u soo dira marba wuxu soo dira aakhiratankii waxay gaadhay inuu qalbigeedii meel ku yeesho imrulqays ninkii la odhan jiray shaacirka ahaa ayaa wuxuu yidhi ataanii hawaaha qabla an acrifa alhawa fasaadafa qalban khaaliyan fatamakkana buu yidhi marka inantii ninkii isagoo cala alhawaa ayuu qalbiga meel kaga yeeshay waxay gaadhay inuu ku yidhaahdo soo dir suuradahaaga iyo sawiradaada marba mid bay u dirtaa marba mid bay u dirtaa waxay aakhirkii gaadhay in ay uu ku yidhaahdo sawir xijaabanoo yaa surantay markii dambe wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyey horta aduu sawirradanaad ilaa hadda laysma araga garo horta adigu sawirradanaad soo dirtaa inanta dhowrsanaan waxay ka qabto 20 sannadood ama dhowr iyo 10 sano weyn baa lagu soo dadaalayay heer jaamacadeed bay soo gaadhay quraankii bay xifdisanayd horta waxaan ku weydiiyey adigu sawir adeeyada u egtahay un baad noo soo dirtaa maxaad sawir muxuu rabaa muxuu ka jeedaa sawir deetimuu qaawiniin oo dee magarasa kuwaynu garanayno inantii markii dambe waxaad sawirataan oon guriga hooyadeed iyo aabaheed dhaafin iyo iskuulka oo qur-aanka xifdiday oo tacab badan la geliyey oo ilaahay maskax iyo garaad badan siiyey uu waxaan doonayo haddii aad samayn weydo sawiradaadaasaan baahinaya inantii waxay tidhi ceebtaada oo kow og yahay kun looma sheega yidhaahdaa waxay tidhi isagoo ha ku ekaado way u baxday oo way aragtay oo wuxuu ku samaynayey buu ku sameeyey waraabe dhergey baa walaalkii xasuustay waraabuhu wishiirri baa la idhaahdaa markuu neef helo wuu isu qayshadaa buu idhaahdaa wuu isu soo ururaa markuu inantii wuxuu doono ku sameeyey ayuu ku casuumay kuraydii xaafadaha iyo asxaabtiisa inantii way xejin kari weyday problemkii iyo mashaakilkii ilaan cidna uma sheegi kartee balaayadanna ma garanaysee dabadeedna way waalan way ku dhufatay markay inantii xanuunsatay ee maskaxda xanuunkaasi kaga dhacay ka bacdina way sheekaysay wax walba way ka sheekaysay ninkiibay ka sheekaysay wax walba ninkiibaa ogaaday dee in reerkii raadinayo xabad lala doondoonayo dabadeedna wuu baxsaday sheegayso inantaasi way ku dhufatay maskaxda way xanuunsatay laakiin waxaa ilaahay mahadiya ina allaha yumhil walaa yuhmal ilaahay wuu u kaadiyaa laakiin ma ilaawo markii arrinkii inantii xanuun ku dhacay wax walba way ka sheekaysay ehelkeedii markaa hubkaa la gurtay dee ilan waa dil kii ugu darnaaye uu baxsaday
ninkii hawshan mas-uulka ka ahaa baduhu ka tallaabo waxaa igu maqaalo ah oo dadkii xigtada ahaa aan ka ogaaday in badda mediterraneanka ilaahay ku qisaasay laakiin maxay ka tahay dhacdooyinka noocaasa ee aan la ogeyn in cid lala wadaagin maxay ka tahay aad bay ugu yar tahay marka loo eego markaa taasi waa khibrad aan anigu ogaa ummaddana hore ula wadaagay caawana mar kale ku celin